إلهي بقى مهدلة وعن قبا نسيب وناك إلهي فرصد بينوسي إنه مضل دولة قوبجو كيهين مدح كله قوبجو كتحي إنك إيه سومالي سكين دقيستو قد نقصقين لدقيستو حالك وحو كتيرنا دولدو فهمان وارن فرحة ديدا له ومدحوين مصبح ومدحوين نصيب بدن فرصدو هلي مدحوينياشي هرمي هرين وحانا دوقو فرح سنة هاي وعن مرنا ليلوبي كريم وحوي خطبة تاريخي هاي وشركة كآخري مدحوينوه وحياة خطبة إدي ديلك جلسي قف كستو رير سومالي لاندا هدو قولها تشوغو هدو الدبدو تشوغو بقى مدة لبي 20 دقيقة أبي خطبة سعودتي مدة مدحوينوه وحو راع كسبيي تاريخ ديني لما يشترن وكبلا بإسرائيلني سي wax loo qaybsaday burburkii dhibaatadii ummadda soo martay halkan maanta gaarnay dawladnimo dhisanay doorashooyin xor oo xalaal ah qabsanay maantana aynu himiladeenu tahay inay dawladda madaxda iyo shacbiga Soomaaliya oo aqoonsadaan goonisataaga Soomaaliland nuxurka ugu weyn diblomaasiyadda waxa weeye inaad qofka ka soo horjeeda inaad adigu qastigaada wadato ku qancisid weeye diblomaasiyadda waxa weeye inaad ku qancisid nuxurka ugu muhiimsan waa ka weeye inaad ku qancisid hawsha inoo taala waxa weeye inaan madaxda iyo shacbiga Soomaaliya ku qancinno inuu goonisataaga Somaliland wanaag iyo faa'iido u soo kordhiyo Soomaaliya maahay inaan wax dhibaato ah Soomaali u geysan haday Soomaaliya tahay iyo Soomaalida kaleba Soomaalida waa walaalo ka wajeer jooga iyo ka Jabuuti jooga waa walaalo waa ummad isku dhaqana isku diina isku afa Soomaalinimadu maaha wax la iska meedhi karo maaha laakiin Soomaali maamulay kala yeeran kartaa iyadoo Soomaali la wada yahay way maamulo kala yeeran kartaa ninka Carbeed wuxuu ku oranayaa Carab baan ahay laakiin Tuunisi baan ahay buu ku oranayaa mid kale wuxuu ku oranayaa Carab baan ahay laakiin Misri baan ahay mid kale Carab baan ahay Yemeni baan ahay wax allaala wax inoo diidaya oo ka hor imanaya inaanu raahno Soomaali baan ahay laakiin Jabuutiyaan baan ahay Soomaali baan ahay Somaliland baan ahay Soomaali baan ahay Soomaaliyaan ahay Soomaali baan ahay waxaan ahay killiga shanaad Soomaali baan ahay waxaan ahay NFD baan ahay waa arrin sharafteeda leh oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto xoog soo kordhinaya inaynu taa ka dhaadhicinno shacbiga Soomaaliya iyo madaxdoodaba nin wasiiraha baan mar la kulmay Etoobiyaan ahaa arsaba kula kulmay
waxaan iga warramayay qadiyadda somalilan wuxuu igu yidhi Mr. Minister dowladda Ethiopia in the long run mustaqbalka fog danta ugu jirta waa maxay 3 calan oo Soomaaliyeed buu yidhi Djibouti oo calana Soomaaliya oo calan hesha Soomaaliya oo calankeeda leh 3 dowladood oo calan Soomaaliyeed sita maxaa dan Ethiopia ugu jirta buu oo AU-ga 3 cod ku yeesha UN-ga 3 cod ku yeesha IGAD 3 cod ku yeesha jaamacadda carabta ku jira xubinka ururka islaamka ku jira xubinka maxaa ugu jira buu yidhi waayo 50 sano ka bacdi waxa imanaya dhalinyaro oo madaxa oo aan wixii la soo maray dhibaato aan ogeyn sida hadda walaalay noqonayaan isu hiiliya wax ishtara waxa weeye inaynu xoog saarno inaan walaalaheen qancinno Soomaaliya ku nool madax iyo shacbiba ee ogaadaan Soomaalinimada inay xoojiso maayo gooristaaga Somaliland waxay noqonaysaa xoog wax u taru noqda iyakana Soomaaliya wax noqda waxaan aad ugu faraxsanahay inuu dhexdhexaadinta Somaliland iyo Soomaaliya garwadeenka yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle shakhsiyan aad baan madaxweynaha u qaanaa waa marar badan baan la kulmay waa madaxweyne caqli badan oo jecel inay Soomaali wanaag iyo nabadgelyo ku wada noolaato oo damciisu yahay Soomaaliland iyo Soomaaliya noqdaan dad walaalo oo aan iska hor iman oo aan dagaal dhex marin waa caadi in lagu kala kaco waa caadi weyn wada hadalladii ka mid tahay in lagu kala kaco qodobada qaarkood laakiin Soomaaliya waxay tiraahdaa waa la bariyaa arrin marka lagu heshiin waayo waa la soo noqdaa halkii baadan laga dhaqaajaa dan baa inoogu jirta Soomaaliya iyo Somaliland inay wada hadalladu socdaan oo midho dhalaan dan weyn baa inoogu jirta in qodobada qaarkood la isku diido lagu kala kaco waa caadi weyn shirarkay wasiirkay ka caadi ka tahay waa la soo noqon doonaa waxaan aaminsanahay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle inuu furdaaminta annaka iyo Soomaaliya ku guuleysan doona aaminsana bidnillaahi alkariim waxa weeye anoo dhalinyaro aan aniga saaxiibada inqilaab samaynay daarta 20 dabaqa haddii seesku ka xumaado waqti kasta ha gaadho daartaas waa tii licda marka dambena dunta seeskii israaca loo dhisay ee loo qoday baa sees ahaa sees aan cadaalad ku dhisnay oo ay koonfuri wax walba qaadatay oo dambigeeda uu lahaa madaxweynihii waqtigaa joogay Soomaaliya Aadan Cabdulla Cusmaan cadaalad darradu ma waarto xaqiiq weeye ma waarto waa tii burburta aakhirka burburka Soomaaliya wuxuu ka bilaabmay cadaalad darrada 60kii markii la israacay bishii Juulaay kowdeedii cadaalad darradii dhacday seeska looga dhigay bay ka bilaabantay madaxweyne Aadan Cabdulla Cusmaan baa Nairobi kula kulmay anoo safaaradda jooga wuxuu igu yidhi waqti kasta ha gaadho israaca berigaa la galay ee degdega ahaa waa ka keeni doona burburka Soomaaliyeed buu yidhi
dhalinyara ahaydeen buu yidhi inqilaab baa samayseen waa idiin socon waayey rag kalaa iman doono idinka dambayn doona buu yidhi oo ku taamaya dowladnimo ay idinka luntay markaa waxay noqonaysaa arrin aakhirka soomaali burburisa waxaa loo baahan yahay geesini baa loo baahan yahay siyaasiyiintu geesini bay u baahan tahay mala zanaawi eritrea wuu sii daayey maraan la kulannay madaxweyne daahir yaale wuxuu yidhi waxaan u sii daayey dee waxay noqonaysa haddaan diido dagaal dambay noqonaysa oo 30 sano socda waxa weeye waxaan rajaynayaa shirkaa ka bilaabmay Jabuuti uu garwadeen ka yahay dhexdhexaadiyaa ka yahay madaxweyne wadan Ismaaciil Umar Geelle inuu dal noqon doono uu ku guulaysan doono inuu innaka iyo Soomaaliya ina kala furdaamiyo isaguna taariikhda ku galo madaxweynayaasha goobjoogka iyo taariikhda ku galaan inaan noqon laba dawladood oo walaalaa oo jaara oo isjecel oo wax istara oo iska warhaya marna yaan madaxda Soomaaliya shacbiga Soomaaliya yaani dhibsanin dowladda Soomaaliya yaani dhibsanin halkan muddadii aan joogay waxaa igu qabsaday lockdownkii waxaan markaan yaraan maqli jiray odayaashoo yidhaahda dagaalkii labaad badxidan baa ka dhacay badxidanku wuxuu ahaa baacmitirkii baa istaagay dagaal saddexaad baa dunida gashay oo markaan u midaysan yihiin oo cadow la yidhaaho corona lala dagaalamaya waxaan rajaynayaa taana ilaahay Soomaali meel kasta ay joogtaa ka badbaadiyo innakana ummaddeena ka badbaadiyo waxaan qabaa waa qodobo aad faa'iidadooda leh kalsoonina abuuraya kalsooni wada hadallada waxaa ka horeeya in dowladuhu jawi abuuraan fiican oo ay ku wada hadlaan marka aad buu mahadsan yahay dowladda Jabuuti kala kicii shalayto haddana la isku soo celiyey labadii wafdi iyo labadii guddiina wada hadlaan qodobadana waa meel mar waxaa weeye inaan la siyaasadayn macaawinooyinka oo macaawinada dadka Soomaaliyeed ay siinayaan donorsku ama dowladaha shisheeye inaan la siyaasadayn oo Soomaaliya qaybteeda ka hesho waan meelna loo soo marin toos loo siiyo wixii aan taa ahayn badee dowladnimadeena iyo sovereignty-geena bay dhaawac ku tahay ummaddeennuna aqbali mayso tii heshiisyadii dowladda Soomaaliya saxeexday ay qalinka ku doogeen in la fuliyo la isdul taago dowladnimada qiimaheeda iyo sharafteedu waxa weeye waxa aad qalinkaaga ku doogtid aad saxeexdid inaad fulisid weeye waata lagu qiimeeyo dowladda ee lagu aaminay lagu kalsoonaado inay Soomaaliya fuliso wax allaale wixii lagu heshiiyey shirkii Istanbul inay fuliso oo ahaa in la qaybsado dakhliga ka soo gala hawada inaan la siyaasadayn wixii dhaqaale ah in dadku noqdaan dad is-aamino isku kalsoono wada hadalkooda noqdo wada hadal ku bilaabma qabow iyo niyad wanaag ku noqdo oo meesha shirka lala yimaado niyad wanaag iyo in go'aan khayr ugu jiro Soomaali la gaadho waa muhiim weeye waxaa indhaka inoma taalo dowladda Soomaaliya inay waqti yar haysato iyo inay waqti dheer haysato inoma taalo innaka waxay innaka inoo taala dowladda mar walba Soomaaliya joogta
inaan wada hadal la galno oo meel isla gaadhno baa inoo taala innaga waqti yar baa u hadhay waqti dheer baa u hadhay shaqadeenna maaha madaxweynaha maanta jooga maxaa cabdullaahi farmaajo dowlad baa dhisan iyakan hadalka la gelaynaa dee ma odhan kartid dowladdii bilaa u hadhay kuma taalo adiga kuma taalo dowladda ma hadday sii doorashada helaana de waynu arki doonnaa haddii cid kale timaadana halkii unbaa laga sii qaadaya dowladdii go-aanaday gaadhay unbaa halkii laga sii socodsiinaya marka inaynu waqti ku lumino dowlad waqti yar baa u hadhay ma wax fiican ma aha waxaan ugu baaqayaa dadkeenna inay madaxweynahooda isdaba taagaan oo isaga iyo dowladdu dhistay kalsooni ku siiyaan shirarkaa bilaabmay inay wax dani ugu jirto ummadda somalilan kala soo bixi karaan ay ku guulaysan doonaan intaa kalsooni lagu siiyo madaxweynaha lagu hambaliyeeyo khudbaddii taariikhiyadu ku akhriyay halkaas guddidii iyo kuna hawsha waday ee dhabar adeega sameeyey dadaalay in iyakana la hambaliyeeyo dowladda iyo madaxweynaha lagu taageero wadahadallada inay sii wadaan oo midho ka dhaliyaan waan ogahay guddida culayska markay hor fadhiistaan guddida soomaaliya ka timi nairobi baan joogay waad baan 91 baan u soo qaxay nairobi markii xamar burburtay ilaa 2002 aan wasiirka noqday 2003 waan soo fadhiisay madaxda waanu muurmi jiray waan garan karaa dareenada meesha yaalla ay la imanayaan wafdiga koonfurka iyo waxyaaba ay u kalifay buugaagtii aan qoray Kenya ku Nairobi lagu daabacay waxay qadiyada Soomaaliland ee dad badal aan ogeyn way 4 cisho muddo yar bay ahayd israaca ka horeysay inay fahmaan bay u kaliftay buugaagtii aan qoray in qadiyada la fahmo khudbaddii madaxweynuhuna nin safiiro la soo hadlay wuxuu yidhi eye opening bay ahayd eye opening indhihii bay u furtay dowladihii goobjoogka ahaa shirka wadasha iyo dowladaha isha ku haya shirka bay eye opening u ahayd khudbaddii madaxweynuhu marka waxaan rajaynayaa inaan guul gaadhno walaalaheena Soomaaliyana madaxdoodii iyo shacbigoodana ay garowsadaan inaan inaku laba dowladooda isu nimi oo israacnay iyadaan cidina na khasbayn oo riyadeennu ahayd in Soomaali weyn la helo Jabuuti la helo killiga shanaad la helo NFD la helo oo Soomaali weyn halkaa ka abuuranto way noo socon weyday riyadaas way iska baaba'day ina marka waaqiciga ku soo noqono labadii dal ay israacina halka isla soo mareen taariikhda waa la ogyahay waa qarsoon maaha waa history wax lagu noqdana maaha laakiin inaan halkaa maanta arrinteena ku dhamayno inoo ka walaal aan dhamaysano Ismaaciil Cumar Geelana taariikhda uu ku galo taariikh dahaba waan u baahanay Soomaaliland iyo Soomaaliyaba